qaadanay inaan maxaa la dhahaye dhalinteena oo burburkii kadib dhashay si ay uga qayb qaadan lahayn inay dhaqankooda bartaan oo ay noqdaan dal dhaqan lahaa dhaqan soo jireen lahaa dhaqankoodana ay hadhow ku faanaan oo jiilka ka dambeeyo ay sii baraan door fiican ka qayb qaadanay waa isdhihi karnaa maxaa yeelay hadda saa u jeedaanbo agabyadii iyo qalabaadkii oo dhaqankeena muujinaya soo jireenka ahaa ayaa noo yaallo meesha oo dhammaan laga helaaya maanta tiyaatarka waana isdhihi karnaa wallaahi waa ka qayb qaadateen soo nooleynta dhaqankiina iyo in maxaa la dhahayay jiilka adinka idinka dambeeyo ama dadka yacni horay u soo arkay dhaqankan qalab maxaa la dhahayay weelashaan horay u soo isticmaali jiray in maanta markay arkaan ay dib u xasuustaan in weli ay jiraan dad soo nooleynaya dhaqankooda oo weli dhaqankoodii ku dhegan magacaygu waa Ilhaan Jaamac Ibraahim waxaan ka socdaa Soomaasa akademiyada dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta dhalinta horta hadda jirta dhaqanka si fiican uma haystaan si waxa ugu talagalnay oo dhaqanka iyo ciyaar iyo wixii dhaqanka u lahayn si ay u bartaan u soo jiidanayna qodana seminaaro oo dhaqanka lagu soo kobcinayo inta uu baran loo sameeyo in oo si ay dhaqankoodii dib ugu soo nooleeyaan ciyaar dhaqameedkii wixii oo dhan markii seminaarada loo sameeyo inta uu baradii intaas lagu soo jeediyo baa ugu talagalnay barnaamijyo hore u jira waa jiraan seminaaro loo qabtay dhaqanka iyo dib loogu soo nooleynayo haddana way jirtaa in dadka waa lagu hoos jiraa in dib loo bilaabo loo sameeyo dardargelin xoog leh si dhalinta dhaqanka maanguuray dad arkaysa dad badan oo dhaqanka ka sii tagay waxay ku dhahaan waxa ilbaxnimada ka weyn oo waa la hormaray laakiin dhaqankeena marnaba aanan ka masuulin marka waa ku jirnaa barnaamijyo badan oo dadkaas dib loogu soo celinayo dhaqankeena